أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ سلام يا دمان أمد برنامج كحرا وأنا ماما مليون أصعد سفر سوماليلاند. waxaan u socdaa safar Somaliland. qaar baa waxay leeyihiin Somaliland ha isku aadi, Somaliland ha aadi. Somaliland wanaadaya. Somaliland waa dal xor ah, waa dad mataqaanaayeeto, waa dal xor u ah inay qofkay doonaan dalkooda u soo daayaan, qofkay doonaan dalkooda ka celiyaan. laakiin anigu Somaliland baan u socdaa. Okay, anigu ku weyn MMS maanta waxaan ahay safar, waxaan aadayaa Somaliland. wata boorsadeed way xiran tahay, safar baan ku jiraa, gurigayga quruxda badnaa waa kaasa, waa xiranayaa. reasonka aan u aadayo Somaliland waxa weeyaan dadka warxuma tashiilka ah ee raba jamhuuriyadda Somaliland inay beenta ka sheegaan. Somaliland ma ahan meel dadka lagu xumeeyo, laakiin wixii xun waa dad iska celiya, wixii khalada waa wixii diida. hadday aniga isoo diidaan means ma aha in Somaliland xun tahay, ma ahan Somaliland inay xun tahay, laakiin waxaan leeyahay waa dad dalkooda iyo sharaftooda iyo sumcaddooda ilaalsanaya iyo nabadgelyadooda. qof kasta u arkaan inuu wadankooda sumcad xumo ama dhibaato u soo wadana xor bay u leeyihiin inay ka joojiyaan, qofkay rabaana inay dalkooda u ogolaadaan. laakiin ma ahan Somaliland meel la isku bajiyo, ma ahan. hadal maaha hemberese arag maaha kuwa ileh Somaliland hadda dadku waa soo celinayaayo. marka la soo celiyo tigirka go'an baaga waa wataa, waxaan ku soo noqonayaa gurigaas Bambaasa raaxa gurigayga ku yaala ku soo laabanaya. waa marka la soo celiyo. haddaan la soo celina horaan u soconaya anoo boorsadeeda wata Somaliland u socdaa, anoo boorsadeeda wataan dhoofaya, anoo boorsadeeda wata baan Somaliland aadaya. Somaliland ma meel isku bajiyo. anoo waxaan ahay hooyo Somaliland, ma u malaynayo Somaliland inaan khalad maaragtay aysan lahayn aan saarayo. so dadka Somaliland ku galgalanayaan waxaan leeyahay Somaliland ma aha meel iska caayo, Somaliland ma ahan meel lagu khaldamo, Somaliland ma aha meel xun. Somaliland waa wadan kastana wuxuu leeyahay safety iyo security buu leeyahay, waana xor. marka aniga queen kordahaba oo maanta u jeeda Somaliland ayaan waxa idin sheegayaa safar baan u baxaya, sibiiq baan igu galay, sahalna waan u soo noqon. safar baan u baxaya, sibiiq baan igu galay, sahalna waan u soo noqon. sidaad mooday maahe waanu seeta dheer yahay. safar baan u baxaya, Somaliland baan u socdaa, boorsada ii xirxiran, barwaaqan ku jira Somaliland. I believe so inay tahay the beautiful place. horta gurigaan dagaal idin tusayaa, gurigaas quruxda badan baan degay Somaliland garan oo beautiful ka ah baan degay. kuwin kardaha baan la dhahaa Mombasa raaxan ku deganaha. so waxa idin leeyahay wax sharaf leh Somaliland ma diido, qof sharaf leh Somaliland ma diido. laakiin dadka docka yeerka ah ee u qaba dal walba inay ayagu leeyihiin. Somaliland habar gidir baa ka hortimid, Somaliland habar gidir baa sanba carruur ka gashay. Somaliland anigu waa jeclahay Miss World, waa gabar yar, dambi anigu ma ka gelayo, ayaduna dambi igama gelinin. laakiin dambigaas rag baa u soo jeeday in maanta laga soo cesho Somaliland. so rag qabiilkay ku abtirsato ka soo jeeda baa u soo jeeday. that's why baa waxa la tusayaa inay balaha laga rifi karaa la tusayaa. laakiin gabadha yarta anigu hala soo celiyo ma dhaheen, laakiin way dhacdaa dalka dad baa iska leh. kuwin kordahab baa ku soo hartay, kuwin kordahab haddii laga soo celiyo Somaliland anu ma qaraarayo. di Somaliland laga soo celiyo ma qaraarayo. waxaan ogahay inay tahay dal xor ah, qofkay doonaana dalkooda u soo dayn kara, qofkay doonaana dalkooda u diidi kara. xornimaduna waa waxyaalaha maaragtay in dadka xornimadooda loo ogolaado. Somaliland ixtiraaf haday hesho
iyo haddii hadda raadinaysa labadaba waa dowlad meel dhisan oo muqadisa oo taagan kuwin kordahab baa lay dhahaa runta idin sheegaya dadka waxaad ugu xun kuwa jecel inay dadka ayaan ama xumeeyaan Somaliland ay male Somaliland ay male Somaliland ay male Somaliland waa dadka Soomaali ugu sharafta badan dadka Soomaali ugu sharafta badan weeye soo waxa weeyaan anigu Somaliland baa wax ku soo barta Somaliland baa wax ku soo barta sharaftayda inta badan ayay ka soo jeedaa hadii la rabo soo waxa weeyaan dadka wanaagsan oo sharafta leh oo Soomaalinimadu ku dheehan tahay Somaliland waa wadanka inta xornimad qaatay Soomaali jacayl calankoodii maanta xorriyadda ay raadinayaan calankoodii Soomaali sud ugu keenay Somaliland waa dad Soomaali jecel oo wanaag jecel Somaliland waa dad qalbigoodu u furan yahay waa dad yaqaan xumaanta wanaagana yaqaan Somaliland hadda marka idin sheego qadiyad iyo qabiil meeshaan ma yaalo Soomaali garanin qofka bini aadanka ah wixii la tuso buu ku dhaqmaa Somaliland xumaan la tusay bay wax walba u samaysaa xumaanta qofka marka la tusan inuu aarsado waa waajib anigu Somaliland waxyaalaha aan ku raacsanahay waxa weeye codkarnimada Somaliland waxaan ku raacsanahay waxa weeye runtay ma kala xleexdaan Soomaalida kale munaafaqada ku badan beenta ku badan Somaliland beentu waa ku yartaha munaafaqaduna waa ku yartaha laakiin waxa ku badan inay wax walba cadaalad ka yihiin inay wax walba ka jawaabaan markiiba laakiin ma ahan dad qurunka iyo qashinka iska xambaarsada waa dad waxna ogolaada waxna diida anigu Somaliland ma safar u aha Somaliland baa u socdaa kuwin kardahab wata boorsadayda kastaala kuwin kardahab waka gurigeedii halkaasaan degay hello Somali people waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaalinimada la raadinayo waa midda la rabo in wixii la rabo beenta la sheego qof Somaliland cadaalad mooyaane been ma yaqaan waa daacad qof Somaliland aragtid wax hadal cad oo wadnaha ku gooyo qof Somaliland waa ku oranaya laakiin Somaliland ma ahan dadka munaafaqada badan duu gacan tahay haday af tahay aarsasho haday tahay Somaliland intaba way taqaanaa because waa xaq weeye laakiin ma taqaano qof kuuna qoslahaya Somaliland kula ahay faylahana ku jarhaya sida habar gidir oo kale Somaliland inay saas tahay waxa idin sheegaya Soomaalinimada naga badan anagu Somaliland diris baan nahay anagu Somaliland waa la degnaa anagu Somaliland waa guursanaa anagu Somaliland wayna guursadaan anagu Somaliland waa dhaqan naqaana anagu Somaliland waa isku dhownahay isku ood baan nahay waxay yihiinna waanu naqaana khaasatan anagu kuwin kordahaba de boqol la ii joogo Somaliland ma ogtiin boqol Somaliland ii joogo hooyo Somaliland baan nahay gabar Somaliland wax ku soo barataanaha geesiyad Soomaaliyeed baan nahay waxay idin sheegaya qof kasta Somaliland Somali Djibouti Somali kale mid walbaba Somali Kenya Somali Ethiopia inta baa anigu meeshii Somali ka yartaba wala igu soo dhaweynaya wana leega jecel yahay reer Somaliland de horaaba looga hadlayba isma lahayn dawladda Somaliland niman ku jira ba ardada MMS dad waxna yaqaan waxna gala waxna gudo weeyaan kuwin kordahab wata boorsadaydi ayada Somaliland u socota boorsadayda waxay diyaar u tahay inay Somaliland aado anigu Somaliland baan u socdaa safar baan u socdaa Somaliland baan aadayaa Soomaalida garanin waa dal xor ah wadankoodana waxay u ogol yihiin qofkay rabaana inuu soo galo qofkay rabaana inuu u diido sharciga dalkooda MMS ma loo jabinayo haday dhahan MMS dalkayga ma soo gali karto Somaliland xaq bay u leedahay marka dadka waxa rabtaan xorriyadda kaga ciyaartaan war waadi salaamaya channelka subscribe iyo tamabka iyo share-ka iyo saara reer Somaliland waadi salaamay in badan baa tiraadeen ma noo timaadide waan idin imanaya سمعنا كرنين وأنا إذا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.